waxaan rabnaa intiinan maanta hor fadhisa ee maxaabiista ay la soo xiray waxaan nahay wasiirka cadaaladda xeelilaaliyihii guud ee qaranka taliyihii ciidanka asluubta iyo taliyayaashii kaleeto ee xabsiga iyo dhammaan howlwadeennadii kaleeto saake waxaan u nimid waa adinka oo waxaan idinkugu nimid markii la idin soo xiray waxaa la idinku soo xiray oo laydiin keena halkan cadaaladda inay sugnaato markii meeshaan laydinku haayo waxaa laydinku haayaa inaad cadaalad heshaan marka waxaan nahay mas-uuliyiintiinnii waxa aad u xihan tihiin oo laydiin haayo waxaad ku xihan tihiin waa sharciga sharcigu waxa uu ogol yahay iyo waxa uusan ogolayn iyo waxa laydinku haysto oo aad muwaadinka iyo xuquuqda ku haysataan ayaa saaka laydinkula soo kallahay waxaad heli doontaan cadaalad waxa laydinka qaaday waxaa waaye warbixin qof walba su'aala la weydiiyey goormaa lagu soo xiray magacaaga maxaa ku xidhan tahay maxkamadda ma lagu horgeeyey muddadii ma dhaaftay su'aalo noocaas oo kaleeta ah ayaa yaalla waxayd hor fadhiyaahu waa mas-uuliyiintu macnaha waxaa waaye waa dadkii laydinka su'aalayay adinka oo la weydiinayey oo lala xisaabtamayo kow marka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo taliska guud ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed runtii waxaan haysannaa documents qof walba meeshaan ku xiran tafaasiisha uu ku xiran yahay waxa uu yahay waan haysannaa maxkamaddii idin soo xirtay goorkii idin soo xiray waa haynaa waxaad ku eedaysan tihiin dembiga aad ku eedaysan tihiin waan haynaa halkaanaad fadhisaan intiina waxa gaar laydinkugu soo soocay waxaa waaye muddo dhaaf muddadii sharcigu oggolaa inaad dhaafteen su'aal marka ayaa ka jirta muddo dhaafkaas oo ku saabsan bulshadana ayna weydiinayso oona daba taagantaha kow horta waxaan rabaa inaan ka jawaabo taliyaha isagoo mahadsan maalin dhoweyto waxa uu sheegay 10 sano oo rumaanadadaa ku xidhan taliyuhu intaas markuu sheegay maanta la isku yimid waxaa horta noo caddaatay 10 sano ma jirto 10 sano oo rumaana ma jirto waxaase jira oo taliyuhu sheegay qofkii meeshaas ku xidhan ee muddada dhaafa maalin hadduu dhaafo inuu asaga 10 sano uga dhigan tahay intaasuu sheegay marka intiini dhaaftay muddada dhaaftayna maxkamadaha iyo garsoorka guud ahaan waxaad heli doontaa cadaalad intiina garsugayaasha ah na waxaad heli doontaan cadaalad muddada laga hadlaana 10 sanana maahan umana dhowaan alxamdulillahi rabbil caalamiin umana dhowaan maanta waxaan kor joogno oo dokumentigeeda aan hayno haddana insha allahu tacaala waxaan u xil saarannahay in sida ugu dhaqsaha badan leh qof walba maxkamad la horgeeyo lagana jawaabo oo xugum degdeg ah oo helo ama cadaalad degdeg inuu helo halkaas ayaan daba taagannahay maanta kaliya maahan maanta waan nimid waan soo laabanaynaa mar labaad waan ku soo laabanaynaa faylkaanaan haysanno waan ku soo laabanaynaa waan hubinaynaa intii fushay iyo inta aanan fulin annaguna waan isku laabanaynaa wasaaradda cadaaladda garsoorka maxkamadda iyo mataqaanaa xeer ilaalinta taliyuhuna waa mahadsan yahay waxaan u qaadanaynaa inay qayladhaanay ahayd 10 sano haddaysan ahayn hal maalin ay noqoto wax weyn waaye marka intaasaan ku nimid insha allahu tacaala intaas ku niyad samaada
annaguna waxaad ogaataan inaan mataqaanaa xisaabtan dhexdeenna inuu ka jiro oo aan isdaba taagannahay si aad cadaalad u heshaan daryeel wanaagsan aad u heshaan marka hadalkeenna maantaasaan ku soo gabagabaynaa insha allahu tacala waan isugu soo laabanaynaa